السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام دمان أصحابتك حلن كنال كيغي أسد ميديا برو. إن شاء الله waxaan maanta idin la wadaagi doonaa 5 tiir oo ay noloshu ku taagan tahay. Haddii 5 tiir mid kamid laga waayo aan noqon doontid mid nolosha ku fashilma. Fadlan ila daawo muuqaalkan. Tiirka koobaad riyo. Qof kasta waxa uu leeyahay riyooyin kuwaas oo uu isleeyahay ka dhabe. Haddaba marka hore samayso riyooyin ka fog meesha aad joogtid si aad u gaadhid mar uun. Tiirka labaad rajo. Alle subxaanahu wa ta'ala ka rajee inuu ku rumeeyo riyadaadii. Tiirka saddexaad rafaad. oo noloshu mar uun ka qoslin mayso ee waxay kaaga baahan tahay dadaal badan si aad u samaysatid nolol ifaysa. Tiirka afraad rumayn. marka aad la timaadid riyo kana rajaysid Allah subxaanahu wa ta'ala dadaalna aad muujisid insha Allah waad gaari doontaa guushaadii waanad ka dhabayn doontaa mar uun. tiirka shanaad waa raaxo. marka aad samaysid dhammaan 4 tiir ee hore kugu soo sheegay waxaad insha Allah alla iidankii aad noqon doontaa mid nolosha ku raaxayste Allahna subxaanahu wa ta'ala uga mahadceli raaxadaada. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta aynu ku kulmi doona muuqaalkan muuqaalamida. salaam.